leadership ka waxa la rabaa qofka hoggaanka haya inuu cudurkii horta hayo Soomaaliya cudurka muxuu yahay waa kursi oo lagu dagaalay iyo siyaasi xume marka ninkaas hogaamiyaha waxa laga rabaa inuu yiraahdo wajigii hore waa bedelaya marka waxa lagu dagaalay Soomaha kursi iyo maxaan ku raahdaa ana rabo kursi oo haysanaya wajigii looga bedel lahaa marka waxay tahay in ninkaas leaderka ah uu sacrifice qaato marka ilaan dibka yaala wuxuu yahay oo ummadda isku ku dagaalaysa waxa way qofkii kursigaas qabta shaka laga qabaa ama kuwa xoogeystaa ama hadhow ka aarsada ama dhibaatada sii badiya wax la mid marka qof walba wuxuu isku dayayaa inuu lugta hayo marka ninkaas uu dhaqaaqin marka that's why warkaysan xukunkii jira ama xukunkii meesha taga inuu lahaado mucaarad fara badan ama shakhsi ha noqoto ama maamulaha ka soo horjeestaan ama mada kale ka soo horjeestaan waxa leeyahay ninkaas lagu soo noqon haduu lagu soo noqdo lagu xoogeysto xitaa waa xasuustaan hadda markii loo furay laga qaaday cunaqabateenka hubka dad badan iyo mas'uuliyiin badan yaa waxay yiraahdeen laga qaaday cunaqabateenka hubkii laga qaaday macnaha waxa way shakiya jira iyo tuhum haduu ninkan xoogsado waxa laga yaabaa inuu hubkaas laydin isticmaalo marka mas'uulkaas ama hogaamiyahaas waxa la rabaa inuu yiraahdo si aan u daaweeyo dadkii meesha geeyay haddii xildhibaano haddii hadda maxaan ku raahdaa national assembly la lahaa 900 xoogaa ay ahaayeen oo dhaqameedyadii 165 inta ninka qofka mas'uulka ah uu hor yimaado uu yiraahdo dhageysta Soomaaliya waxay isku dishay oo dhibaatadan gaarsiiyay waa xukun Soomaaliya anigu waxaan idin sheegayaa aan wada hadalno anigu xukun ku soo noqon maayo 4 sano haystaa 4 sano waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon Soomaaliyeed intaas miyay gashiin inaan raadiyo dib u heshiisiintii dadkii Soomaaliya isku soo celiyo oo aan dadkii walaalayo yaan rabaa waxaan rabaa inaan noqdo ninkii raadinaya cadaalad maxaa yeelay Soomaaliya waxay isku dishay cadaalad darro oo laga baqaayo qof walba inuu qabiilkiisii u weexdo oo wax gaar ah siiyo aniga meeshan Allah wuu xisaabtamaya 4 sano joogaya mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo dadka rabo hunguriyeenayo waxba hay jijiidin hadhow idinka imaan doona meeshan ay igala shaqeeyo aan igala dhisan meeshan waxaan ahay aniga madaxweyne dastuurka ay siiyay waa lay doortay internationalka ay ugu yaqaan laakiin waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon idinkana nabadoon ila noqotaan oo aan raadino dib u heshiisiin dhab ah maxaa yeelay Soomaaliya waxa inta iyadu dhexdeeda isdishay oo intaas oo dhibaato ah isu geystay caalamku waxay u aqoonsadeen Soomaaliya macnaha si ay iyagu ay maxaan ku raadaa ay yiraahdaan waa u caawinaa Soomaaliya oo ay justification uga dhigtaan waxay yiraahdeen Soomaaliya waa dalka adduunka humanitarian ugu xun